xamse barraar ayaa noqday ra'iisul wasaaraha koob iyo labaatanaad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya. Saddexda isbeddel siyaasadeed ee Soomaaliya ay soo martay. Xamse waxa uu ku yimid magacaabis ku dhisan kaltirsiga beeleedka si la mid ah 13 madax xukuumadeed ee ugu dambeeyay kadib sanadkii 2000. dhinacyada saamaynta ku lahaa xulashada ARC iyo waxa ay ka filan karaan siyaasad ahaan ayaan eegaynaa. caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla ee uu haysto ayaynu mar kale faalayn doonaa. Xamse iyo Xasan Sheekh. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo ka hor u magacaabay Xamse ra'iisul wasaare sida uu qabo dastuurka qabyada ee federaalka. madaxweynaha gudashada waajibaadkiisa koobaad ka sokow waxa ilin cusub uu furay siyaasadda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha magacaaban waxa ku kulmay saaxiibtinimo shaqo iyo xisbinimo siyaasadeed ay weheliso dun urur diimeednimo. 2 kursi siyaasadeed iyo aanshihiisa koox qabiileedka ka tirsanaysay ama shinsanaysa kursiga. iyo 3 oo ah filashada shaqo iyo fulin awoodeed. marka laga yimaado qodobada u muuqda ee Xasan uu ku xushay Xamse waxa jiri kara sifooyin aan dadka u wada muuqan karin taasoo uu ku kasbaday kalsoonida madaxweynaha. dabeecaddiisa waayo-aragnimada iyo kaalintii uu ku lahaa soo bixidda Xasan Sheekh iyo isku xirka kooxda ololaha ee madaxweynaha iyo xildhibaanada Jubbaland ayaa loo arkaa sidoo kale qodobo fursad dheeriya siiyay Xamse. marka laga soo tago hab xulashadii madaxweyne Xasan waxa uu ka filayaa ra'iisul wasaaraha 2 qodob oo taagan. in Xamse noqdo ra'iisul wasaare xukuumad soo bandhigta shaqada dawladda isku haysa laamaha dawladda isla markaana fulisa siyaasadda iyo aragtida madaxweynaha. 2 inuu qaado culayska beeshiisa oo ah mid markasta colaad aan qarsoonayn la gasho xukuumadda xilka haysa. Xamse waa siyaasi ku yimid xulasho ku dhisan beelnimo. shaqadiisa dastuuriga waxa ku lamaan tan aan qornayn ee qabiilnimada isku haynta federaalka oo markasta xukuumad kasta u ah hortabin ayaa lagu fasiraa isku dheelitirka xeerka 4.5 maadaama madaxweynuhu isaga la doortay. ra'iisul wasaaraha magacaaban waxa uu ka filayaa inuu buuxiyo ama ugu yaraan qayb ka noqdo mashruuca saluugnimada ee goor kasta laga filan karo maamulada ku koontada ah si gaara Puntland. 2 Madoobe iyo Dani. bilowga xilka ra'iisul wasaaraha waxa la wariyay in talada ugu badan laga siin doono labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland. waxaase jirtay balanaafeed ka dhacday Xasan Sheekh waqtigii ololaha haddana taladiisa u gaarka ayuu ku magacaabay Xamse. Dani oo booskan loo arkayay inuu qaadan doono ayaa laga filan karaa inuusan muujin colaad xilli hore ah. dadku agdhow ayaan ka soo xiganay in ay ka filan karaan siyaasad dabacsan kuna qiimeyn doonaan bilowga sida uu u qabto ugana maareeyo tabashada Puntland. qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah sida uu la falgalo shuruucda ay Puntland diidan tahay ee khayraadka awoodda federaalka iyo qaybsiga kaalmada caalamiga. 2 amniga qaranka iyo dhismaha ciidan qaran iyo shaqaalaysiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya. magacaabidda golaha wasiirada iyo safiirada ayaana hortamin leh. 3 qodob ayaa lagu ssoo koobay filashada Dani. Damujadiid iyo Daljir oo UPD ku midoobay sida ayana ay filanayaan. sida aan bilowgii ku sheegnay Xamse waa siyaasi ka mid ururka PDP ama UPD kaas oo ay guntinta u tahay afkaarta ikhwaanu muslimiinka. al-islaax waa meesha laga lifaaqo marka laga hadlayo kooxaha islaamiyiinta. kooxda PDP ama loo yaqaano Damjadiid waxaa laga filan karaa siyaasi aan isku beddelin marka uu xilka yimaado. siyaasi bulaalo oo xilka ku cuslaada sida inta badan laga arkay siyaasiyiinteeda. Daljir oo ah garabka labaad ee PDP kula midaysan midowga UPD waxaa laga filan karaa inuu u noqdo siyaasi ay la fariisan karaan wax ku darsan karaan isla markaana aan ka fogeynin xafiiska xukuumadda. 3 dhinac ee filashada ugu weyn ka qaba oo ah kooxihii imaanshihiisa ku lug lahaa marka laga tago waxa kale oo jira kooxa aan tala laga weydiinin oo warbixinteena tan xigta aanu ku eegi doono. bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.